إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولا ليال waxaynu caawa insha Allah si wadi doonaa hadii Ilaahay idmo dowradii inoo socotay ee aynu ku qaada dhigaynay sanadka arrimaha la xiriira qoyska muslimka aynu meel badan ka eegnay maanta hadii Ilaahay idmo caawa hadii Ilaahay idmo tabaaraka wa taala waxaynu ugu martiyaa Sheekh Mustafa Haji Ismail Harun wada garanaysaan waxa insha Allah mawduuciisna uu yahay sida aad ogtihiin uu gidaarada inoogu dhagan qoyska muslimka dhibaatooyinka ku wajahan ama caqabadka haysta iyo Ilaahay damka Sheekh Mustafa inoo qaada dhigi doona marka Sheekh Mustafa ku soo dhaweynaya falyatafaddal mashkuran ma'jura bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبعد أيها الأحبة لأن درسك كان كصابسا الأسرة المسلمة والتحديات المعاصرة qoyska muslimka iyo taxadiyaadka taxaddi waa challenge waa waxyaabaha ka hor imanaya ee nolosha caqabadkeeda ee casrigan jooga intii aan muslimiinta la soo weerarin أنا مثلا دقالكي نابليون بونابرت 1798 أنا مصر قبصنين وحي كهر ريي مشكلة مسلمين تمي هيسنين كصابصن أفكارته يا مراجع ده يا ما شاء الله نقنيه مركب وحلسكو قبطه دبا شرتيا دينتا انت اللي طبقاي iyo intaan la tabaqayna ma qofku intuu macsi ku dhacay intaan ku dhacayna oo qadiyatu tatbiiq ayuunba marna gaabinaysay marna dheereynaysay sida kolba dadka iimaankoodu uu xoogamo oo ay islaamnimadooda u tabaqaan laakiin waaga wixii ka dambeeyay isbedel weyn baa ka dhacay caalamka islaamiga isbedeladaasi ka dhacay waxay keensadeen nolosha qofka muslimka oo dhan inay challenge ku noqdaan inay taxaddi caqabad ku noqoto jawaanibta nololeed oo dhan baana taxaddigaasi ka hor yimi hadday tahay mid dhaqaale hadday tahay mid afkaareed hadday tahay mid tacliimeed yacni muslimiintii waa laga xoog batay waana la qabsaday afkaar iyo aaraa iyo caqaa'id kalena waa loo keenay waa la baray waa lagu waday ilaa uu islaamku noqday wax meelo cidhiidhiya ku jira ilaa loo baahday xad la yidhaahdo mustalaxaadkeenna terminolojiga aan caddayno markaasaad waxaad arki waa bangi islaamiya waa jaamacad islaamiya oo maxaynu u odhan weynu waa bangi bas maxaynu u odhan weyna waa jaamacad ila muslimiin baan waxaan islaam ahaynba ma rumaysnin maxaa islaamigan loo daba wadaa waa urur islaamiya waa xisbi islaamiya waa maxay islaamkan la wada daba wadaa waxa islaamkan la wada daba wada keenay waxa weeyaan marjiciyadii baa lagu cidhiidhiyay afkaar kala meesha taalla
oo uba muuqato inay iyadu ta rasmigaa tahay. haddii jaamacad la yidhaahdo waxaa loo fahmaya inaan islaamku shaqo ku lahayn. haddii bangi la yidhaahdo waxaa loo fahmaya inaan islaamku shaqo ku lahayn. haddii xisbi la yidhaahdo waxaa loo fahmaya islaamku inaan shaqo ku lahayn. haddii la yidhaahdo urur waxaa loo fahmaya in islaamku yacni marjiciyo kale ay ummaddu yeelatay. sidaa daraaddeed inta rabta inay islaamnimadeeda muujisato ama soo ceshato waa inay label cinwaan ah islaami xagga dambe kaga sii nabtaa. haddiiba noloshii ay caynkaa marayso maxaad u malaynaysaa markaa gurigii usradu ama gurigu faamiligu qoysku waa unuga koowaad ee bulshada ay ka asaasanto. bulshada la sheegaya waa qoysas isu tegay. qoysku wuxuu ka kooban yahay bulshadu waxay ka koobnayd oo dhan rag dumar dad waaweyn dad yaryar bulshada oo dhan buu matala qoysku. halka qoys bulshada oo dhan baad ugu dhex imanaysaa. caruur baa joogta dhallinyaraa joogta qoyska caadiga ah dumar baa jooga rag baa jooga waxgarad waayeel baa jooga dhallinyaraa joogta طبقات المجتمع oo dhan buu joogaa. qoysku siduu u eeg yahay bay inta badanna bulshadu u ekaataa. haddii qoysku uu noqdo wax qurux badan bulshaduna waxay u muuqanaysaa wax qurux badan. haddaba darsigan caawa anigu aan ku qoray wuxuu tilmaamayaa waa maxay taxaddiga usrada maanta hor yaalla. mushkilaadka hadda casriga kan dambe haysta waa maxay? taxadiyaadka waxaan odhan karaa taxadiyaad daakhiliyana waa jiraan taxadiyaad khaarijiyana waa jiraan. challenges dabadda kaga imanaya oo afkaar iyo dhaqamo iyo diimo iyo aragtiyo iyo qaab nololeed aanay diintoodu sheegaynoo dabadda kaga timi waa jiraa. waxaa kaloo jira mid gudaha ka imanaya oo dhaqankii dadka laftiisa isbedelaya. diinta intay ka garanayeen bay isbedelaysaa. qaabkay u noolaayeen bay isbedelaysaa. xadaaradan cusub ee la soo galay istihlaakiga aba qoyskii wax badan ka bedeshay. idan challenges guda ahina waa jiraan. marka waxaan rabaa inaan uun muqtatafaat tilmaamo challengeska dabadeed iyo kuwa gudeedba si aynu si fiican ugu fahamno. markaa suurad guud uga helo waxaa habboon inaynu aragno dunida iyo qaabkay u taallo guud ahaan inaynu aragno. dunida aynu maanta joogno dowlado yar ayaa power oo ka taliya. laga yaabo dadkooda marka la isku daro less than 20% inay yihiin. populationka dunida ku nool boqolkiiba 20 aan gaadhaynin ayaa waxaa gacantooda ku jira almuasasaat altijaariya walmaaliya. muasasaadka dunidu ay leedahay ama wada leedahay ee dhaqaale iyo xoole ha noqdo IMF sanduuqi naqdi dawali bangiga adduunka munadamada tijaarada ee caalamiga ah ama shirikaadkan waaweyn ee la yidhahdo shirikaat alkawniya qaar ku tilmaamaan. kownka mala shaqo kuma lehe waa shirikaadkan uun dhulka aan kusoo koobno. multinationska kuwana yidhahdeen shirikaadkan waaweyn ee dowladahaba ka xoog badan. waayo shirikaadda dhaqaalaha dunida maanta jira oo laga yaabo afrika oo dhan inay hal shirkadii ka lacag badantay. afrika oo dhan oo laisku duuduubo. muasasaadka dhaqaale gruubka yar buu gacantooda ku jira. waxaa kaloo gruubka gacantooda ku jira muasasaadka iclaamiga ah iyo thaqaafiga. muasasaadka iclaamiga media waxaan la yidhaahdo mediahaasi TV ha noqdo jariidad iyo majallad ha noqdo shaneemo iyo filim ha noqdo wax allaaliya wax lagu qoro iyo wax faafiyo iyo la daawado iyo la akhriyo isaguna inta ugu badanay gacantoodu ku jira. iyaga markaa dunida u laqima siday u fakarayso siday wax u arkayso waxa ka dhacay sida uu eeg yahay dhacdo kasta oo dunida taala iyaga inta kugu akhriyaan baad si u fahmaysaa inay sida arinku yahay. waxaa meel heblaayo ka socda BBC-da CNN ta sheegtay hebel baa sheegay caynkan baa sheegay marka sibaa lagaaga dhaadhicinaya inaad u qaadato.
waxaa intaa dheer oo sii daba socda jaamacaadkii iyo wixii la midka ahaa mu'asasaadkii tacliimiga ahaa oo inta ugu badan ay gacantooda ku jiraan haddaanay gacantooda ku jirina manaahijtooda oo markay jaamacad yaroo afrika ku taalla ama meelaha ku taalla ammaan rabto inay sheegato dee waa inay tidhahdaa jaamacadaha ingiriiskaanu ku xidhannay ama imtixaankayga ingiriiskaa qaada ama jaamacadaha maraykankaanu ku xidhannay hadday tidhaahdo dee waa laga dambaynayaa taa waxa weeyaan waa jaamacad khatare baynu u qaadanaynaa marka haddaana iyagu inoo imanna innagaaba ku faanayna inaynu iyaga xilfi wadaag la leenahay aqoomeed iyadoo laga yaababa aqoontii rasmiga ahayd inaan ahayn waxaynu dhignoo dhammi waxaa kaloo intaa raaca alhay-aat اdawliya almutaxida iyo munadamaadkeeda tirada badan leh munadamada caafimaadka munadamada maxaa la ydhahaa unesco munadamaadka UNDP waxaan tirada badan ay hoosta ku wataan intaasoo dhan marka la isku daro waxay kawinaan afkaarta maanta dunida musaytirka ama xooga badan lee socota saa daraaddeed maalan hay-ada almutaxida oo aan odhan karna dee waxay matalaysaa ra'yiga ragga waaweyn shanta dowladooda vitogale iyo inta daba socota ra'yigeeday matalaysaa munadamadaasi waxay qabataa intaasoo mu'tamar iyo urur oo ku saabsan qaabkan aynuu soconno qura qoyska haweenayda iyo ilmaha soo familigu intaa kama koobna waa imaa qofka dumara ninka isaga wax badan cidi ku fali mayse iyo carruurta labadaasaa wax badan mu'tamaraad loo qabtaa maalan waxaa ka mid ah mu'tamaraadka sukaanka iyo tanmiyada bay idhaaheen kobaca bini aadamka ee dhaqaaliya dad mu'tamaraadka loo qabto inta badan 10kii sanaba mar bay qabtaan 74kii 47kii Bucharest baa lagu qabtay 84kii Mexico baa lagu qabtay 94kii kadnan baynu qayladiisa inta badan maqli jirnay qaahira lagu qabtay maalan ka qaahira lagu qabtay 160 dowladood baa ka soo qayb galay iyo 1200 oo urur oo NGO ah munadamaad غير حكومية NGO yada kuwa sheegta 1200 oo urur imsa muslim haabadu malaynaysa 1200 oo urur iyo 160 dowladood baa ka soo qayb galay bay yiraahdaan maxaa la niqaashiga ugu waaweynaa waxyaabaha ugu weyn ee la niqaashay waxa ka mid ah alxurriya aljinsiyya in dadku xor u noqdo sagaskiya galmada oo waxa laaliya waxa qaanuun xaaraantinimeynaya baabka ku saabsan in la tuuro waa inanka lama xukumi karo inanta lama xukumi karo guurku waxa taqaaneen maaha rag baa rag guursada dumar baa dumar guursada waxba waa la isku daraya wixii la doono waa inuu noqdaa free shayga labaad ee ugu weynaaya isna laga doodayay ee mu'tamarka 160 dowladood isugu yimaadeen iyo 1200 oo urur waxa weeyaan uurka aan la doonin in la tuuri karo yani ilmahan la iska soo ridayo qofku inuu xor u ahaado hadduunu marquub ahayn wax la doonayo haddaanu ahayn in la tuuri karo waxaa jira mu'tamaraad kale oo dumarka oo qura loo qabto oo iyana hoos yimaada United Nationka ayaa waxa hoos socda maalan waxa ka mid ah mu'tamarkii Mexico lagu qabtay 1975kii oo shicaarkiisu ahaa المساواة والتنمية والسلم مؤتمركي كوبنهاجن لغو قبطي 5 سنة كدب 1980 مؤتمركي نيروبي لغو قبطي 1980 مؤتمرك عان كاينو يمكا وركيسة ولي حوغا ومقالو بكين لغو قبطي 1989 كبكين وحيابيه ووينايا لغو النقاشي محاكمة دها gabadha iyo caafimaadka gabadha iyo xuquuqdeeda gabadha iyo faqriga gabadha iyo bii'ada wasiiqadii ka soo baxday maxay yiraahdeen hal wasiiqo ka soo baxday waxay sheegaan 230 goor buu ku soo aroray ereyga gender ma taqaaniin genderku luqa ahaan
waa wax sagas ku dhadhow lab iyo dhadig laakiin ma aha socially markay inoo fasirayaan iyagu say u sharxayaan waxay leeyihiin ninnimadu iyo gabadhnimadu waa dawr ijtimaaciya waa wax qofku uu matale wuxuu u dhasho maaha gabadhan biologically aynu inagu gabadha u naqaanaa gabadh maaha ninkan aynu nin u naqaanana nin maaha ee shaqadu bulshada ka qabto bay ku xidhantay gabadhuna nin bay noqon kartaa ninkuna gabadh buu noqon karaa marka shaqadaad bulshada ka qabato saa daraaddeed baa waxaa la diiday in female iyo male la qoro maalan dowladihii iyo afrika qaybo badan oo ka mida iyo muslimka iyo waxaasaa diiday ereygaasi oo ka dooday markaasaa la yidhi guddi ha loo saaro guddi baa loo saaray reer galbeed waxay leeyihin maye gender waa in lagu qoraa waa kaasiyo gender 233 goor wasiiqa ku yaala waar hala define gareeyo bal hala sharxay eraygani muxuu yahay wasiiqadii ugu dambeysay waxay ku soo baxday mataqaanaa sharxii markii lagu heshiin waayey waxa lagu qoray the non definition of the term gender bay yidhaahdeen waa lama sharxaan nin walba saa doonta u qaado duni isu timi oo waraaq wada qoranaysa oo waxa ku qoran la nin walba saa doonta u faham lama sharxayo waayo waa lagu heshiin waayey erayga gender ku qora qof walba sidii aad adigu doonayso u qaadun weeyaan waa the non definition of the term gender bay yidhaahdeen waan sharxi doonaa waxaasi oo dhan mu'tamarkaasi waxa ku xigay mu'tamar ka dambeeya New York lagu qabtay 2000 mu'tamaraadkaas oo dhan waxaan rabaa inaan idin sawir idin siiyo waxay ama qaanuun ka dhigayaan ama tadwiil la dawladeynaya United Nations intuu qaato la oranayaa dunida hoos timaada ee memberka ka ahi waa inay fulisaa waa qaanuuna United Nations ka soo baxay afkaar وتسويق للأفكار أفكار بالفافينية وحاسو مؤتمر أنت الله قبطه لعق اللغو بحينيا الله وضعيا أفكار تاسو حلقو سمينيا إذن كو حتى غانين ملايين إعلانات الله سمينيا محل هذا عنضا يو ألابتنا يبسنية وحاسا الله سمينيا محي تسويقه ماركتينكا إعلان waxa ka weyn iclaanka maanta dunida afkaarta loo sameeyo afkaar baa la faafinaya afkaarta qurxin la qurxiyay oo مثلا afkaar yada la faafinayo mustalahaadka dadku ay jecel yihiin baa lagu isticmaalaa xuquuqda rag xuquuqda dumarka xuquuqda caruur qof binaadam xuquuqdiisa diidan ba jira intii lagu dhaaf xuquuqda dumarka de waxa tilada waa wax fiican soocaga maaha لكن حقوق ذا الشيء يا وحويان ان السوق هذا وين يجري كرتا سكس قاعد يدون وين لا سبعين كرتا شرع ما كما حدنا قانونكو انه جور كما حدنا سكسكو جور يجور لا ولا سبعين كرا فاملي جود الدجنان كرا فاملي محل الله يقانا نين يقبل اسقبه وشرع اللي يسوق مهريه وحدونا بشرع وهذا وحكى الله يقانا بين نين يقبل ود الدجن مهر بيو دعينه وحل الله يقانا لبنين ود الدجن والله يسوق مهريه هذا والله بنين وحل الله يقانا لبنين وأن ليسوا مهرين وده دقن بكليه وحلو يقانا لبا دمر ليسوا مهرين لبا دمر ليسوا مهرين إلا لبا يطبن قيبان وحكو دوبو تلماميا وثيقة يونايتد نيشن كيو قويسكا محا قويسا هذا ما كان مقاشو أسردها الله مريم حصرين سادر ريبا وحلو قبانيا وفاملسكي قويسكي با الله وضع لكن قويسكو ستا وقويس نوع كنا markaad maqasho xuquuqda dumarka waxa salaada xuquuqda dumar baa laga hadlaya laba mid oo aqliga bini'aadamka gali kara hoosta laga soo galinaya guurka maxaa la yiraahdaa isha waxay sheegi jireen maxay fircooniga gudniinka fircooniga hal joojiyad meelaha ku arkaysa dabeetana konton kalena waa la sharxaya idan waa litazyin wala qurxinaya waxa kan walilghra lacag baa lagu bixiyaa إمشان جوابا ما أنت هرجيسك فران أو حاجة يرون ساقطة هيات كان يونايتد نيشن كي ماشي تشوجا يكون كلات رضا بدن اللي ماشي تشوجا وحي بيهام بروجكتس mostly projects كاسمها واحد development كسابسة واحد مدة واحترمها قفك قادنا يا هنقول يسوي جدا لي شانكم طبعا كم أحبال القصاصين يا شرير بعض قبنا يسا capacity building يبينا كلام الشيء يو حصل ولا حقوق ضد مركز لقوا الرمية أما قال يربى يمنا يا مدير أفريقيا ربى يمنا يو حقال لك شري شيء دينه وحكن و
laaca laysu dhigo markaad wax dabanayso maxaa la sameeyaa qofka raba baadiye inuu ugaadh soo dabtaa muxuu sameeyaa haddaanad laac dhigin laac waa waxaan loo dhigay dee dabinka ma soo doonanayso sabab ku kalifaysa inay dabinka u timaadaa waa inuu jiraa waxaani waa laac la dhigayo laakiin afkaaro badan ay ka dambeeyaan mararka qaarkood alminax baa ku xidhan dowladuhu waxay bixiyaan waxaa la odhanayaa dowladdaasi xuquuqda bini aadamkay ku xadgudubtaa la siin maayo aidiskay dowladaha waaweyne bixin jireen xuquuqda la sheegaya waa maxay waa ragga u taga ayaanad xaqooda ogolayn ama qaanuun ciqaabaya baa leediin ugandha iminka qaanuun ciqaabayay saxeexeen dabeetana dunidao dhan baa qaylinaysa macnaheedu waxa weeyaan in la yidhaahdo waxa isku xidhan waddankaasi xadka uu ka gaadhay xuquuqda bini aadamka iyo minaxa la siinaya laakiin xuquuqdan lagu sheegaya maaha xuquuqdii bini aadamka aynu isla naqaanay ee gaal iyo muslimba la isla qiraya maaha waa afkaartii reer galbeed qayb badan oo ah baa dabada kaga naban oo xuquuqda bini aadamka ka tirsan waxaa la mid ah alcunf in laguba isticmaalo dowladaha waaweyne waxay yidhahdaan waddan hebel baa xuquuqda ku xadgudbo power baaba lagu isticmaalaa askari iyo qori ama maahee almuqaataca aliqtisaadiya cunaqabatayn waxaan leenahay markaa caalamkan aynu joogno inaynu fahamnaabay ku fiican tahay si aynu u garanno usradan yar taxadiga hortaagani waa maxay war qoyska dhibta haysataa waa maxay qoyska laba dhibood baa haysatay leenahay dhib waa dhib khaarijiya oo dabad ka timi dhibna waa dhib daakhiliya gudaha ka timi awalan waa fudud yahay xalku oo waa muslim ahow ilaahay nabigiisii moxamed aha muxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha nabiyu taqi illaah maxaa ku xiga walaa tutic alkaafiriina waalmunaafiqiina wadac cadaahum watawakal cala allahi wakafaa billahi wakiila baa ilaha yidhi yacni aayadda dambe aan akhriyey iyo aayadda hore waa walaa tutic alkaafiriina waalmunaafiqiin isku soo duuduub ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa munaafiqiinta iyo kaafiriinta ha aqbalina de way ku dhibayaane maxaad yeelaysaa markaa wadac cadaahum baa la yidhi dhibtoodana iska dhaaf watawakal cala allahi wakafaa billahi wakiila baa ilaha yidhi ilaahay tala saara ilaahay baa kugu filanay haddaba waxaan rabaa inaan tilmaamo dunidu way isriixaysaa waa bashar berigii hore waxaa la odhan jiray waa qaarado iminka way noqon weyday hadda waxay idhahdaan waa village iminka markii internetyadan iyo waxaan tv-yadan dunidao dhan laga da waxaan soo baxa waxay dhahay war village maahe waa qurfa bay dhahay waa maqsin hadda dunidao dhan waa qol waayo waxaa dunida yaalloo dhan qolkaaga gudihiisaad ka helaysa dugaan meel lagu bixin internet gashaya iyo tv furtayaaba waxaa dunida ka jira oo dhan qolkaad joogtaa buu yaallaa haddaba taxadiyaadka qoyska haystaa muxuu yihi taxadiyaadka qoyska haystaa waa laba qaybood gaaladu markii hore ay inoo timi ee ay dunida muslimka isticmaarka ku samaysay hal wax may faragelin inta kale oo dhanna way faragelisay masaladaa u fiirso hadda inta kale oo dhan way faragelisay oo qaanuunkoodii bay u dejiyeen qaanuun madaniya iyo mid criminala iyo wuxuu doonaba ha noqdo hal wax may faragelin qadiyadda qoyska ay u bixiyaan axwaali shakhsiya maalan ingiriisku markuu inoo yimi qaadiyuu yaman ka soo kaxaystay shaaficiye ah isagoo qaadiye muslima watuu inoo yimi wixii arrinta qoyska ku saabsan guur ha noqoto dhaxal ha noqoto wax allaaliya wixii qadiyad qoys ku saabsan sharciga islaamku yidhi ku dhaqa ilaa haddana caalamulislaami sidii bay sharciga islaamka loo hayay waxa kaloo dhanna sharciga laalaaba buu yidhi waxa kaloo dhan waa la laalaaba laakiin masaladaa wuu iska ilaaliyey iyaga laftoodu masalada tan kumay dhiiranayn inay usrada baabiyaan ama reerka waa dambey waxaan ku soo kordheen waaga hore ay gumaysiga wadeen faamiligu iyaguba faamili bay u arkayeen qawaaniintoodana wuxuu dhigaysay faamiligu inuu yahay nin iyo gabadh isqaba laakiin afkaartu way isgediday
aan laba qoraaloo United Nationka ay ka soo naqliyaan tilmaamo 1975 munaasabadii العام العالمي للمرأة مناسبة العام العالمي للمرأة waxay soo saareen taqriirkii hay'adda الأمم المتحدة ka soo baxay wuxuu qoraya باللغة العربية هدان كو أخريه إن الأسرة بمعناها الإنساني المتحضر لم يعد لها وجود إلا في المجتمعات الإسلامية رغم التخلف الذي تشهده هذه المجتمعات في شتى مجالات الأخرى waxay dhahdeen usrada qoyska oo wata macnihii bini aadamnimo xadaareed wuxuu dunida ka jira bay dhahdeen caalamka muslimiinta inkastoo muslimiintu nolosha inta kale oo dhan ay mutakhalifiin ka yihiin nolosha inta kale oo dhan waa dib u dhac ba kaga jira bay leeyihiin laakiin qoysku ninka mas'uulka ee reerka haya ee ka mas'uulka ee caruurtu joogto ee dumarku joogaan cid walba ee isku xidhan ee takaaful ka dhaxeeya is ixtiraamaya kala dambeeya ee is adeecaya ismaamula qoyska noocaasi wuxuu ka jira bay dhahayn dunida muslimiinta tamaaneed waxa weeyaan ammaan leeynoo soo jeediyay bal imkana cusurtan dambana dhageyso ممثلك صندوق السكان في الأمم المتحدة UNFPA هولندا وحلا آري هوكمان آري هوكمان أيها وحو خطبتين أيها ندوة لغو قبطي مكسيكو marka wuxuu ku faraxsan yahay isbedelka dunidu ay qoyska ka samaysay hadda muxuu leeyahay in irtifaac muaddalat at-talaq wa kadha irtifaac muaddalat al-mawalid kharij nitaq al-usra يعد نصرا كبيرا لحقوق الإنسان على البطريركية وحلايا هي تردن بدتي فريتانك طلاق الدنيا وو بطيبو لي waxa kala batay buu yiri caruurta sharci darrada ku dhalata ee guur lagu dhalin labadaba waxaan u arkayaa buu leeyahay guul xuquuqda bini'aadamku ay gaadhay inay tahay waliga ma maqashay waxa ay dhaha in la isfuro iyo in caruur garacye inay dhalato wuxuu ku tirinaya inay tahay yu'addu nasran kabiran li huquuq al-insan ala al-batrarikiyya batrarikigu waa maxay waa mujtamac ninku ka taliyo mujtamacii ninka taliska ahaaba laga baxay buu leeyahay laga xoroobay oo dumarkii iyo caruurtii baa ka xoroobay marka sharci darrada wax bay ku dhashay markay doontana furitaankeeda ay qaadatay wuxuu ku tilmaamayaa markaa inay tahay xorriyad Annie Foster daraasad uu sameeyay waa Maraykan wuxuu leeyahay dunidu aqalgii hore ha ilowdo ee ahaa sakasku inuu tuu yahay mailan fi mailinu yahay al-ajnas al-khamsa hadda weeyaan buu leeyahay nooca bini aadam إن تقسيم الخلق إلى ذكور وإناث بيقول أصبح واقعا تجاوزه الزمن بني آدم كاين مك الله قيبيه بيقول الله بيددك وور لقيت جيبوا ليه ولم يعد يعبر بدقة عن حقيقة الواقع الإنساني ذلك أن الواقع أصبح يحفل ب5 أجناس وروح لا هذا نين يقبل الدنيا هدا كما تشرانه شن نوع بني آدم ما بهد تشربوا ليه وكوي رجع برجي هرا لورن شري ولا دي دمر كبرجي هرا لورن شري رجع عصبة رجع كرة دمر كعصبة دمر ككرة إيوه إن رجع يدمر كله يسكو بدله كون أي بيولوجيكالي أنت قلان إن أي بدلان مركز يعني نبى الله قلايا هرمونال لجمودية الناس الله سمعنا يا مهبل صناعي الله سمعنا يا ولا جبرين يا سقوا جبروا مركان ولانا فعلا ما هو ملاينسا متكاسي انتو سو اسلام ودين تديب كفهمي ان لا غران واي صفك مساجدك حق لو دري دونم حق دبر كان لغي حق رجال لغي عالم aynu joognaa ma hadaraasan in qori sameeyo qora waxaanu sheegayno afkaartaas ay United Nation عولمة وصمينسا United Nation بربطة globalization أفكارت النوع عصينا كسميس
waayo akbar munadamaat alcaalamiya lixuquuq اlinsaani waashhariha cala aliطlaaq ayaa waxay leedahay waa in la damaano qaadaa kaafat alxuquuqi lishawaad cala almustawa aldawli alqanuuni waltashriici markaasaa 66 dowladood ay yideen bale waxay yidhaahdeen eraygan homosexual af ingiriisiga lagu yidhaahdaa waa erayga hala tuura bay yidhahdeen maxay isticmaaleen LGBT wax la yidhaahdo LGBT ma maqasheen LGBT waa 4 kelmadood oo la isku nabay ash waxay u taagantahay lesbian dumarka fuula jid waa guy ragga kora bid waa bisexual waa mid labada dhanba isticmaala tiida u dambaysana waa transgender bay yidhahdeen waa kuwan la bedelay aan sheegaynay marka LGB ha lagu bedelay bay leeyihiin meesha tan oo xuquuqdooda ha la raadiyo haddaba ayuha alikhwa afkaartaas runtii maaha afkaar masaajid lagaga warramo laakiin waxaan arkayaa iyadoo aayar soconaysa inay magaalooyinka idinla joogto waa taxadiyaad khaarijiyo guriga ku soo kordhay waa wax iminka waxay taagan yihiin alhandasa alijtimaaciya lilusra bay yidhahdeen waa faamiligu wuxuu u baahan yahay in muhandis loogu yeedho handasada cusubi maxay sheegaysaa waxay sheegaysaa qofka bini aadamkaa dowrka uu bulshada ka qaadanaya waa dowrkii loo tababaro bay leeyihin haddii ninnimo loo tababaro waa nin haddii gabadhnimo loo tababarona waa gabadh ficlanna way isku dayeen ma u malaynaysaa in la sameeyey tajaarib bini aadam inta meel lagu ururiyey in tajribadaasi loogu yeedhay khubaradaasi oo la leeyahay qaarna rageeya qaarna dumareeya idinku aan u eegin biologically see ilaahay u abuuray ha u eegin nin baa la rabaa la soo saaro ninnimada gabadhnimo dareemayo ku faanayo oo dowrkii gabadhnimo haya gabadh baa la rabaa la soo saaro ninnimo dareemayso faanaysa oo iyadu leh waxay yidhaahdeen wadiifat alumuuma hooyanimadu way yidhahdeen ma aha shay mulasakh waa shay ku dhajisan dumarka ma aha bay yidhahdeen waa wadiifa ijtimaaciya waa shaqo bulshadoo ciddii qabatunbaa hooye noqoto bay leeyihin ninna hooyuu noqon karaa gabadhina hooyay noqon kartaa cid waliba waa wadiifa ijtimaaciya ayuha alaxiba waagii hore waxaan leenahay isticmaalku markuu wadanadan gumaysanayay waxaa ka soo horreeyey mubashiriin iyo mustashriqiin wadaaddo diimahoodii sida iyabaa ka soo horreeyey niman mustashriqiin la yidhaha orientalist niman le dhaqamada iyo afafka dadkaanu baranaynaa oo sahana ah kadibna waxaa la bilaabay dowru tacliim waxbarashadii iyo iskuulladii waxaa in la sameeyo kadibna waa la qabsaday hadda colonism cusub baa socda isticmaar jadiida hadda jira laakiin aadawaadkii mustacmarkii hore ma wato wasaa'ishii hore hadda la isticmaali maayo hadda wasaa'isha cusubi waa munadamaad hayru xukuumiya waa NGO-yo waa hay-aadka iqaathiga hay-adaha dadka u gargaara waa United Nation waa ururo noocaasi oo aan magac dowladeed wadan baa ku imanaya ficlan rag bay matalaan laakiin markuu ku imanayo wuxuu wataa wax kale dabeetana laacaasay daadinayaan imka miskiinka yare baadiyaha jooga marka abaartu qabsato muxuu yidhaahdaa maxaa la yidhahdaa munadamooyinka caalamiga iyo maxay daqbixiyayaasha dunida hana soo gaadhaan bay yidhahdaa waayo waa nimankaasaa meel kasta jooga oo wax caawiya hadda falsafada la wadaa markaa waxay tahay aakhir xusni lilislaam godkii ugu dambeeyey muslim uu galo oo ahaa godka guriga faamiliga ayaa la rabaa in la iska bixiyo kii ugu dambeeyey meel sharci islaam si fiican uga dhaqmo guriga iyo masaajidkunbaa hadda jira socanka ma aha masaajidda inta badan meelaha qaarkood waaba la isku dayay in faatixadana laga bedelo salaadee soo maydan maqal turkiga in af turki lagu tukan jiray oo la diidayba in faatixada af carabi lagu akhriyo allahu akbar af carabi may ahayn waxay yidhahdeen imaam baa salaad galay markaasuu af turki allahu akbar ku yidhi dadkii midba mar buu go-iisa qaatay dee le waxaan salaad maahe
السلام عليكم markuu yiri yo af Turkiya ayu xagaaga mise ciidaba lama joogto xaga kale ciidaba lama joogto muslimka xadkaas la soo gaarsiiyay hatta masaajidka in la yiraahdo af kale lagu tukanaya laakiin inaga wali kaasi inama soo gaadhay keenii baynu iskaga tukanaa faatixada wali imaamku u akhriya masaajidku inaga in badan isma bedelin inkastoo meelaha qaarkood la soo rogay masaajidka in kaard lagu galo si loo ogaado inta goor aad jamacad tagtay ilaa 5 salaadood aad tagtay iraabi baad qoraysaa gurigana wali islaam buu joogay oo bulshada markaad eegto miyuu inagu jira reer aan meher isu qabanin oo jooga miya jira maya yani bulshadu ma aqbalayso waa in nin iyo gabadh isqaba oo la isu meheriyay oo qaadi ama sheekh isu soo meheriyay wayna yihiin carruurtaas un baa la ictibaarinaya inay yihiin carruur xalaal ku dhalatay gurigaa un baa loo arkaa guri xalaal ku dhashay waa laga yaabaa marka meherka la sameeyo in saacadda ku xigta fisqiga la bilaabo balkaan ay canabe iyo hees la isu qaado soo maaha waa arooskii la yidhaaho laakiin haddaan intaa la samaynin guriga ma ictiraafayno idan gurigu iyo axwaashiisu caalam alislaami waa meesha sharciga islaameed uu ka jiro ee ninka iyo gabadhu hadday isqabtaan loogu gar noqo ee gabadha talaaq hadday noqoto lagu furo ee ninku hadduu wax furayo uu sharci islaam wax ku furo hadduu wax guursanayo uu sharci islaam ku guursado hadduu carruur dhalay lagu qasbo inuu beeliyo hadduu gabadha qabo lagu qasbo inuu waa meesha qura sharciga islaamiga uu maxay uga jiro 100% haddaba halkiiba imka la isugu soo dhigtay taxadiga koowaad ee umma islaamiga hadda haystaa wuxuu yahay goobtaas la rabaa sharcigani wuu ku raagay in isna laga saaro intii hore laga soo saar bulshada cusub markaa terminology hadda layna soo galay yaray bixintii baa bilaabantay umuumadu inay wadiifa ijtimaaciya tahay gender wax la yiraahdo imka eraygaas aad dhagtiinu ma maqasho gender ka laga warramo jaamacadka haddaad imka tagto xuquuqda gender ka waan ma iska tiraa xuquuqda isaga ba ka warrantaan male and female baynu naqaanay xuquuq sagas wax sheegaya maqlimays xuquuqda gender ka baa la soranaya waa erayal isu hadoodilayo waayo genderku waxaynu naqaanay ma masculine female iyo male kaynu naqaanay maaha dee xad bay soo gaadhsiisantay mustalaxaadka saa loo bedelay marka galbeedka haddaad tagto waraqaa la buuxiyo berigii hore waraaqda markaad buuxinaysa waxa la buuxin jiray nin iyo xaaskiiba ku qoraa imka maaha waa laga takhalusay waxaa lagu qoraa partner adiga iyo shariigaaga shariik baa qofka tiin waayo guurku bay yidhahdeen waa sijni sidiisaba waa xabsi gabadha xuquuqdeedii oo la dafirayo saadaradeed say xuquuqdeedu u cad u muuqato kow marka hore inay partner tay way la muujiyo inay shariiktay waa marka labaad si cid kale loo soo hoosgaliyo labada isqaba nimanka ah waa partner labada dumarka waa partner ninka iyo gabadhii la yaqaanay waa partner eraygii hore si waa loo yaqaanay guurku nin iyo gabadh buu sheegi jiray si ka loogaba takhaluso ayaa loo isticmaalay mustalax la yiraahdo partners dadka shariiga ah uqalada reer galbeed ummad waliba uqalay leedahay falaasafay leedahay aqoonyahan bay leedahay cilmi baarayaal bay leedahay waxaan sax bay u arkaan maya in badan oo uqaladooda kamid ah waxaan qalad u arka in badan oo aqoonyahankooda kamid ah u arka dariiq lunsan inuu yahay doodahoodu wali waa duni xoro doodahoodu waa iska socdaan looguma hanjabo United Nations baacinka yiri kan baa inaga leen uga jabay doodahoodu waa iska socdaan waa dhawayda Canada maray dood ka socotay ninba doodaya wuxuu leeyahay ragana ragga u guursanay dumarkana dumarka u guursan hadaa rabtaan inay sii jirta buu yiri hal su'aalun hal iga jawaab 60 sano kadib Canada cidii degaysay sheega buu yiri wuxuu ga jeedaa wuxuu ga jeedaa nin guursaday gabadh guursaday ma cid bay dhalayaan 60 sano gudahood bay maranayaan dadkani buu yiri wadanka cid aynu siinayno sheegay marka yani ma aha aqliga wax gala buu leeyahay logic ba maaha haddaad ragna ragga ku darto dumarkana dumar ku darto dad min carruur jiri maysee wadankan yaa yeelanaya buu leeyahay 60 sanadood kadib macnuhu muxuu yahay aan u jeedaa macnaha nu socda waxa weeyaan ma aha westranko dham inay dadku daafada yihiin dad wada liitaynayeen dad akhlaaqda ka wada dhibaataynayeen dad wada xunanayeen sida ma aha laakiin waxay tahay waa thaqaafad dabada laga riixayo dad gaara iyo ururo gaara iyo bulsho gaar ay dabada ka riixayaan siyaasiyiintuna mushkilad baa haysata la yiraahdo codka ah
maanta maraykan dee ragga kora iyo dumarka kora waa bilmalaayiin madaxweynaha ka hadla dee wuu dhacaya cod heli maayo muxuu samaynaya haddaan odhanin waan idin taageeraya dee hadhow sanduuqa madow bay kaga ridayaan soo bixi maayo idan macnuhu ma aha qof kastoo madax oo galbeed jooga ama qof kastoo professora ama aqoon-yahana ama waayaaraga ama caynka oo galbeed jooga inuu qof xun oo waxan taageeraya yahay maaha laakiin macnuhu waxa weeyaan afkaartan baa hadda saytarayso meel adag bay la maraysaa waxay la maraysaa xad lagu xidhay afkaartan iyo xuquuqda bini aadamka la isku xidhay marka haddaad ka hadasho xaqii bini aadamka cunsuri baa taa lagu leeyahay cunsuriyadda sagaskaad wadaa baa lagu odhanaya cunsuriyad xagga galmada ku saabsan ayaad wadaa taasi waxay keensatoo abuurtay in xataa la xalili kari waayo oo inagu maanta mashkilaad bayn leenahay inuu taaglaanay maalan qaadka ma cid baa maanta wanaag u haysataa maya dadkeenna cuqalada waxgaradka maamulka dowladaha culamada bulshada rag iyo dumar waa la wada arkaya balaaye inuu yahay qof maanta ammaano miyaa jira qaad maya laakiin xal miyaynu haynaa qof odhanaya hala joojiyo ma jiraayo aan dib u soo gelin mase soconaysaa haddaynu dhinaahno hadda yani xad buu soo gaadhay uu xadhigga goostay xuluul waaweyn in la helo mooyaane inay suurtagal ahayn in si fudud halkaasoo kale ay la maraysaa iyagana maanta waxaa laga yaabaa inagu haddaynu 60kii joogi lahayn oo aynu saynu maanta qaadka u garanayno u garan lahayn waxaa laga yaabi lahaa dowladaheenna culamadeenna dadku intay isu tagaanba halkaa in geed laynagaga xidhi lahaa la yarayn lahaa bulshada aanu ku faafeen idan maanta markaynu tajribadiisii hellay iyo wuxuu dhalo iyo waxaa yimi xilli aynan wax badan qaban karaynin waa kadalik galbeed maanta mushkilaadkani way jiraan waa bulshadiiyo xagga hoose iska soo bedelaysaa laakiin waxay arkayaan bulshadiiyo tarantii luntay waxaanay lumeen waxaasoo dhan markaan isku soo daro waxaan rabaa inaan warka soo koobo waxaas afkaarta lacagta wadata ee socota ee qaanuunka wadata ee united nation xambaarsan ee 1200 oo NGO wax ku dhowdhow wadaan waxaasoo dhan marka la isku daro waa wax guriga muslimka maanta ku ah tahdiid mid dakhliya isna jira marka oo u baahan ka hortagis badan isaguna waxaan leenahay waxaynu u baahannahay nidaamkii guurka inaynu dib u adkayno oo fudaydino oo guurku wax fudud oo qof waliba guursan kara noqdo oo tacqiidaadka tirada badan leeda la daba wada laga daayo waxaynu u baahannahay inaynu hooyanimada sharaxno oo tilmaamno in hooyo la noqdo inay ka qurux badan tahay in engineer la noqdo iyo engineerad engineerku muxuu soo saaraa daar buu dhisaa soo maaha ama computer buu dhisaa hooyaduna maxay dhashaa qof bini aadam ay keentaa iyo ma bulshada ku faa'iido badan bulshada ma qofka daar ku soo kordhiya faa'iido mise qofka bini aadam soo kordhiya waa shaqo bulshada bini aadam qabto shaqada ugu qiimo badan la laakiin haddii laga dhigo islaantu waa maxbuusado dumarkan kijada iyo guriga dhexdiisa lagu xidho sariirta iyo kijaday ku dhex xidhan tahay haddii la yidhaahdo waxa loo baahnay inay mutacallimad noqoto dayarada kiciso caynka waar kuwii kiciyey waxba ma hayaan kuwii dawladda cirka u diray waxba ma hayaan family ma hayo walidaalika inaynu hooyanimadu wax qiimo la tahay sharaxno waanay dhexdeenna wax qiimo liidata ku noqonin ama aan la liidin hooyadee hooyanimo iyadoo ay bulshada magac iyo maamuus ku yeelato oo lagu ixtiraamo waxaynu u baahannahay in carruurta la ixtiraamo xuquuqdooda la siiyo walidalik ba ururada muslimiinta maalan azhar hay-a alcaalamiya lilgaata hoos timaada qaybteedan ku saabsan carruurta iyo usrada islamic charter bay leeyihin ay soo saareen culamo badan oo muslimiin ay ka qayb gasheen ururo badan oo muslimiin qaateen islamic charterkaasi wuxuu ka koobay 164 qodob oo sugaya xuquuqda haweeneyda ilmaha iyo qoyska dhamaanteed waa 164 qodob oo laga soo qaatay sharciga islaamiga si dib ummadda muslimiinta dhexdooda loogu faafiyo umuuman waxaan leenahay taxadiga daakhiliga ina haystaa ee ugu weyn waa jahlul bidiin taxadiga daakhiliga ee ugu weyn
challenge-ka ugu adag ee muslimka haysta maanta waa jahlun bidiin oo diintiisa uu jaahil ka yahay iyada sababta in qoysasku burburaan waana cadhaysanayo sheekh islaantii 3 baan ku furay maxaan yeelaa buu ku odhanaya dee waxay ahayd ilaa way kaa fuqaysaa haddaad mid quraba ku furtee socodka ma miyay ku dhegsanaanaysaa hadduu mar qura furo fuqaysaa laakiin jahliga wuxuu gaadhay xad uu isleeyahay iska reebiba kari maysid inaad 3 sheegta mooyaane idan jahliga ummadda haysta qoysku waxay culimada muslimiinta tilmaamayaan maalan 5 qodob bay maqaasida qoyska ku tilmaamayaan 5 qodob qodobka koowaad ee qoyska looga dalnayo waxa weeyaan waa xifdu nasl in jinsi albashari la ilaaliyo binaadamku inaanu dabar go'in maanta reer galbeed wadana waaweyn oo kamid ah dabar go'aya sii yaraanaya aqoon-yahankooda rag badan oo kamid ah bogaag qoraya ay leeyihiin waanu maranaynaa ma ahayn dawladda ku soo duuleen waa inay wax dhali waayeen dumarkoodii 2 sababoodba waa la loolamaya de gabadha hadday wax dhasho soo ninka ka hadhi mayso ninka iska celinaysaa de wasiirnimo raadinaysaa madaxweynenimo raadinaysaa si ay taa u samayso waa inay 30 sano jaamacada iyo dhowr iyo 10 sano experience soo gasha oo axzaab iyo shaqo iyo xoog siiya 40 iyo dhowr markay gaadhana de ilma kala tage laakiin waa hal nin iyaduna markaas iyo rag iska celinaysa noqoto jinsi albashari si loo ilaaliyo guur baa loo baahan yahay guur qaabkii sharciga ahaa u dhaca nin iyo gabadhii la yaqaanay ah si bulshadu deganaanshiyo xasilooni ay u hesho guur baa loo baahan yahay taxqiiq السكن والمودة والرحمة waa maqsad labaad meel qofka binaadamkii uu ku nasto nin iyo gabadhba qofka binaadamkii gurigiisa ku nastaa gurigiisa uu naxariis ka helaa gurigiisa uu deganaanshiyo ka helaa gurigiisa stressku kaga hadhaa ولذلك ما إله إلا هو من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة والرحمة مقصدك مقاصد واوين أقولك وحكم ده إن لا إلاليا نصبك أبترسين تدتك إليين يا إلمه عد حنانا يسوء كوريسوء وكحرين يكمدين لها كوي دولدو كوريين كوري واي dunida maanta waxa la yiraahdaa child delinquency baa waalay junuux al-atfal carruurta yaryar dambiilayaasha dunida waaweyn waxaad arkaysaa xabsiyo dhan oo juvenile prisons la yiraahdo xabsiyada carruurta yaryar waa carruur yaryar oo mujrimiin noqotay wax dilayso wax boobayso maxaa keenay inta ugu badan ama guri aan jirin bay ku soo koreen ama sharci la'aan bay ku dhasheen dibadda iskaga biireen ama meelaha dawladuhu hayaan bay ku soo koreen ama wax la mid ah ولذلك النصب كلا إليه درادة بشريعة الإسلامكو زنا ممنوع ذي وتبني عروت اللي يبصدا أما لما قعوا ممنوع ذي وعدة اللي تشديره قبل عدة ترسطه والله ممنوع قبل الرحب كذا وحكوا شرائنا قرصه وإثبات النسب للسمي وجحده سيلنا ضفر الشرع اللي قد شيء وحاصوا أحكام القرآن كور رميه ومن أجل حفظ النسب الله إلى قفكم مركم ميل كترسي وكفانا kada abaha garanayso hooyada garanayso ka waran nin weyn oo konton jiro kula abahay baa raadinaya yurub waa caadi oo kolba DNA meel qaadayo soconayo le waxa raadinaya cidii dhashay ma hayo waa madaxweynaha laga yaabaa ninka kan ana bihi garanay waa mushkila waa qof daba go'an qodobka shanaad مقصد كجورك اللي قد اللي يوحوي أنا الحساب إن لو قدر صناعه وان سيدي بهايم تدتكو يسكرين حول ما هدتكو وبني آدم كنا رقم إنهم إلا كالأنعام بل هم ضلوا سبيل قارب إلى كتل المهم وإنه بني آدم نقضى ولذلك النبي يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج قربك وقدم بأي شنات كورا أفراد بوهاي qoyska loo sameeyaa waa xifdu tadayyun baan idinleeyahay wayn diinta lagu ilaaliyo oo lagu rabeeyo oo lagu koro oo noqdo meesha dilaacisa ubadka cusub ee ummadda waayo gurigu waa meesha ku dheer bulshadu ay ku kulanto raggeeda iyo labkeeda waaweynkeeda iyo yaryarkeeda iyo carruurteeda iyo dhalinyaradeedu guray wada joogaan
suuqa marka loo baxo way kala baxaan ciyaalku iskuul bay tagaan dadka waaweyn shaqo iyo xafiisyay tagaan dumarku guri bay joogaan waa la kala baxaa suuqa waa kala suuq laakiin meesha intuba ay isugu yimaadaan iskaga war hayaan ee afkaarta isku weydaarsadaan ee wax ku noqdaan waa guriga dumarkii jooga raggii jooga caruurtii joogta cid waliba joogta ولذلك أيها الإخوة تحديك أما challengeska reerka haysta ka khaarijiga iyo ka dakhiliga aba markaynu isku darro oo dhibta ugu badan ay ku saleysantay imma al-jahl wa imma at-takhwif wa at-tajwi' wal-'unf jahli inaga haysta diinteeni iyo waxa inagu xeeran jahli inaga haysta waxa la inoo soo waarideen la inoo dhigayo ee kontanka la kabe ka u sareeyana aad arkayso inta kalena aan arkaynin waxaan la inoo soo waaridayay lacagta lagu wado inaad dhageysato $10 la isku siiyaa Soomaaliya NGO-yada tan waa inaad ka qayb gasho soo dhageysato ayaad maalintii yoomiye leedahay $10 baad leedahay $10 aqligaaga aad ku iibsatay ogsanow $10 bilaash ma hawo toban wax lagu sheegayo waa toban afkaariyadana laga dhaadhacsanayo waa toban binaadamku waxbu kala iibsadaa dadkani waxay barteen afkaarta sida loo suuq geeyo suuqeyntu ma aha waan ku dilayaa qola inaga leh hadaan raaci weyda waa dilayaa saacid isku raacda dunida dad raaci weyda waan ku dilayaa ku raacayso laakiin mabaadi'da iyo diimaha iyo afkaarta iyo waxa binaadamku haysto waa la suuq geeyaa way suuq geysteen koodi way ka gateen adigoo ordaya tagayo leh waxaan ka gaadhayaa meel yar halkeero aan maanta ku leeyahay baan ka gaadhayaa adiga maalin kasta project qorayo leh project guurka fircooniga ama xuquuqda dumarka ama xuquuqda carruurta ama xuquuqda waxaan ka waramayaan wada ada project qoranaya waayo loo fangareynaya idan imma jahl inuu wado imma tazyin iyo waxaan la inoo daldalaaliyay in lagu wado xagga guriga la inaga wado iyo mararka qaarkood in la isuba hanjabayo oo dawladaha qaarkood ضعف daraadood waxay arkayaan baanay diidi karin waayo waxa la oranayaa xuquuqda bini'aadamka ku xad gudubteen haddaad waxa sameeysan cuna qabatay markaas ninkii dhamaaya madaxda ah sida miskiinka isnabaya waayo qaanuun dawli waa isaga lagu qaadaya waxay taagantahay hadda oo United Nations soo wada maxkamada jinaa'iya talyaaniga markay 98kii ku shirayeen ma filayaanay waxa la horgeeyay in xeerka xuquuqda bini'aadamka lagu gudbay soo imka maxkamad lama sameeyeen hadii goor Afrikaanka la saaro madaxda Afrikaanku baa la saaray dameed maqashay cid kale la saaray iyo in yaro balkanisa maxkamadaasi dunida la sheegayo waxa dadka lagu saaraa bini'aadamnimada ku xad gudbeen waxa la rabaa in lagu daro bini'aadamnimada xad gudubkeedu wadan kasta oo leh sharci ciqaaba ragga u taga ama dumarka u taga doodaaba hadda socota oo wadankii aqbali waaye madaxdiisa hadhow in loo waarida maxay lahay baa la geeyay waayo xuquuqda jinsiga ee bini'aadamka cunsuri ku noqotay baa xad gudubta idan ayuha alahibba بدائش إنه ربنا إنه سمينا وهرين إلهي وحين إلى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إلهي وحين إليه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين إلهي وحين إليه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ودوا لو تكفروا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء إلهي وحين إليه إن لمد نقطان بيدونيا هذا بينه مرة بناين إن لمد نقطنا وحي واحترها وحان واحترين ميا وربنا إن المريكان يروك لمد نقطنا تكنولوجيا هي العقدة هي هرمركة إن كلام نقطنا وربنا بل إنا وحديرانه مرة بنخصص النمدة هي فالحمدة هي قريلا أنت هي النظام حمدة هنا وكلام النقطة لكن هي وعكس جاي نجربها هي واحد كليه تكنولوجيا كمايا هذا نقول يركز سامي ستالك سامي بقول ما بدع كرتو
annagu baa mas'uuliyadda qaadi karna idinku dad yar yar aan aqligooda badnayn oo mas'uuliyadda nuclear ka aan xambaari karin baati walidalik kuwa waaweyn baa mas'uuliyadda hayn kara hubka wax gumaada hubka horumara hubka caynkana waxa ma samaysan kartid technology-ga cid ku soo waaridi mayso laakiin waxa aan wax tarin waxa allaaliya waxa aan wax tarin waa lagu soo waaridaya inana waxa leeyahay war xagga kale u dhiga iyana waxay leeyihiin may xagga maan u dhigaynaa iyagu waxay leeyihiin waxa faa'iidada leh xaggay joogayaan waxa kalena nagala mid noqda inaguna waxaan leenahay qori wax weeye war isweydaariye kan idinba ku jabtay ee naga daaya idinba waa ku jabtay ee naga daayo xagga u dhigo waxa faa'iidada leh xagga kala soo mariya haddaba waa walan tarda canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum waxaynu u baahanay markaa taxadiga guriga haysta marka aan soo koobo warkiisu waxa weeyaan gurigu waa meesha qura ee sharci islaameed ku hadhay dunida al-ahwaal shakhsiyya dawladaha muslimkiina ay inta badan sharci kaga dhaqmaan inta haddii la inaga saaro war diin waxba kama soo hadhin salaada masaajidka soo hadhaysa haddii intaasi baabaado waxba ma soo hadhin walidalik ka umma waa inaynu mowqif ka lahaanaa maxaa xuquuq dumara maxaan xuquuq dumar ahayn maxaa xuquuq raga maxaan xuquuq rag ahayn maxaa xuquuq caruureeda maxaan al-unf al-usri baa lagu leeyahay dabeetana waa maxay unfiga usriga lagu sheegayaa waxay ku leeyihiin islaantaad ku xadgudubta haddaba ninka islaantiisii u tagay baa waxa la qorayaa waa rape-kay ka mid tahay waxay ka mid tahay kufsiga islaanta ku yara diidida baad u tagtaa lagu leeyahay kufsi xeerka kufsiga lagu qaadaya marka caalamku halkaasuu maraya waxaynu u baahannahay markaa inaynu diinteennu mawaaqifta istaagtay waxaas oo dhanna godolooladeenna keenta haddaynan inagu godoloolada lahayn cid inagama soo gasheen innaga xaqa carruurta ku gudbaynaa ka dumarka ku gudbaynaa kan ku gudbaynaa waxaan oo dhan samaynaynaa waxaynu u baahannahay intaynu diinteenna fahamno dawlad iyo bulsho iyo mujtamac baynu iyada ku dhaqanno ilaahay baana xuquuqda inoo qaybiyey xuquuqdani mid rag qaybiyey maaha mid dumar qaybiyeyna maaha mid carruuree qaybisayna maaha waa xuquuq rabbigiina wada abuurtay mid walba uu xaq siiyey qaabna uu yidhi u noolaada qaabkaasina inagu filan walidalik waxaan kusoo koobaya markaa taxadiyaadka guriga haysta way tiro badan yihiin wax muxaadaro iyo laba lagu soo koobi kara maaha waayo gurigu bulshadoo dhan buu matalaa dadkii waaweynaa dadkii yaraa carruurtii dumarkii bulshadoo dhan buu matalaa bulshada waxa dhib ka jiro dhami guriga uu soo gaadhaya waxaynu u baahnay markaa inaynu islaamka dib ugu noqonno dad muslimiin oo dhabana noqonno afkaartan iyo waxaan la sheegaya kala reer galbeedna inaynu ka tallaabsanno inta khayrka ay haystaanna inaynu u xaydano saynu u hello asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu